أريا مقالة كنا والله ومقالة ولا يا بضن صباح والبا iyo duhur walba waxaad arkaysaa dagaal hor leh oo ka dhex taagan dirawalinta basaska wada iyo ardayda waxbarashada loo diray qaadaan Arya soosi daarida soosi Arya yiri joog ore ya yiri joog Arya daarida nada yarde sid beel ma xidhina afkan cawaanka muxuu ah war waxaan muxuu ahaa yara fatarada la soo saaray beel dad doonaysa maad hooyada kanada may kugu dhasho Afrika joogtaas ay kulaada wada karkarbay martaas ay kulaada beelna ma xidhnaa ka war gluud baa ku carraya deerahay wareerin wariya maxaad u daaqada qorto kala dhacaysa istada madaalada ilaahay istada tabanay anaga silooyo sidii yaada naayne wariya adu maxaad gaari ku dhacaysaa adigu ilaa maanta waxay fadhina cawaanyow wadada waa wada luglugo kaliya baa naga ayl gaadhiga ay lagu wadadina soo wada arkasay tahay وبل مدير السلام كادو قدد بكلي قدد كانوا معنا waxa qodimsa dawladda oo shaqeeya aniga cashuur habeenii maalin laga qaadana luud baan ku cararayay iska fadhiyaadan inta midii soo kacaan baanado baanada ka weyday madaxayda kala dhacday iska fadhiyo weydaan ruuxan maxaa ujeedada fiidiyogan iyo ahmiyadiisa waxay tahay waxa meesha ka baxday mas'uuliyadii iyo ahmiyadii uu darawalku iska saarayay ardayda yar yar uu qaadayay ama uu duhurnimadii soo qaadayay sida ka sheegay inta adu intermediate waxaad arkaysaa basaskii oo carruurtii daaqadaha qoorta kala dhacaysa darawalkiina aanu arkayn waxaad arkaysaa carruurtii oo baskii uu sida ardaydii soo rawaxiyay albaabkii furan yahay ama waxaad arkaysaa hablihii iyo inamadii oo qaar taagan yihiin albaabka baska ay taagan yihiin oo baskiina albaabku furan yahay oo ay socdo baskiina uu socdo inta ugu badan darawalku waxa uu sameeyaa ama darawaladu waxay sameeyeen ardaydii sida ayaa waxay ku carraan load say u kala horqortaan numberka deedna ardaydii yareed baan mas'uuliyad iska saareen wadadiina wada go'an tahay baabuurta wadada isku kabkabanayaan shilalka ugu fara badan baa ka dhaca tiro male inta bas ee arday yar wax ku dhex noqotay inta shil la gashay inta uu la dhacay mid kale duhurkii waxa ugu badan waqtiyada duhurkii 12 duhurnimo ilaa 12 barka waxa la soo daayay ardayda yar iskuulaadka inta ugu fara badan waxay ku hareerayaan wadooyinka oo carruurta yar markay soo baxdo ilmaha yar ma garanay gaarigani waa risk iyo waa halis ma garanayo wadadii buu ilmihii yar galaya cid loo baahan yahay inuu mas'uuliyad iska saaro oo ilaaliyo oo xawaaraha baabuurta uu gawaariga uu yareeyo waa darawalka tiro male inta usbuucii la soo dhaafiyo kaliya ta arday yar uu gaari ku jiray wadada yani darawalka waxa loo baahan yahay inuu mas'uuliyad iska saaro isagoo 30 qof sida ayaa wax uga qiimo badan loo yiro 30 kuna uu soo qortaa uga qiimo badan yani bas carruurtii waxa lagu dajinayaa xataa wadooyinka markuu darawalku uu dajinayo carruurta heerka jeega uu dajinayo waxa qurux badan wadada inuu baakin uga baxo meel fog uga baxo dabadna carruurta yar barta ku dajiyo laakiin waxa arkaysaa iyaga wadada bartikeeda ku dajinaya oo inta carruur yar gaariga ka degtay ka daba wareegto gaari jiray iyaduna tiro ma laha hatta ilmi yar wuxuu hormaraya baskii buu hormaraya markuu gaariga ka taatago adu muhiimadda ugu weyn ee fiidiyogan u soo gudbinaya waxay tahay waalidka iyo macalinkuba waxay ilmaha ku soo aaminaan markuu iskuulka ka soo baxo waa darawalku waa inuu mas'uuliyad iska saaraa wadooyinkii wada go'an yihiin dadkeena inta ugu badan ishaarooyin ma laha oo wadada roonga wada cararaan is xawaaro fara badan bay ku socdaan darawalka carruurta sida waa inuu ka taxadir badnaada darawalada kale waa inuu nidaamka ilaaliyaa way hal naf kaliya ta mas'uul kama aha 30 qof ee gaariga saaran ama carruurta yar waa ka mas'uul ilaalin fara badan baa carruurta leenooga baahan yahay waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum عقبات الغريب هذا ليس الداعي حج ليس الداعي